هذا كان hotel بدر ku karsanayay garaw iyo gaalkacyo oo ayaantan SSDF baan ahay wadan baan u soo halganay dal baan xoreynay dhiig baan ku xoreynay Buntlandnimada u soo dagaalan akhriya sideedaba qolada marka halkan joogta inta badan waxay jecel yihiin oo koobiyayaan qoladii SNM waqooyiga Soomaaliya haysatay ee ina bixiye ina kaahiniyo Mujaahid Ali Gurey ninka la yiraahdo mujaahidka isku sheegay محمد نور عرالة رجل نوع عسى أي أخري تشرين هرتيجا وقوي وصدق على النبي ديك بأسوأ عمني ها وحي أمبا بلعبين هاد كوبي لسوق هذا هل واحد هاد سنير هينو سومال أنتم مالنتا سن ماذا مالن بأسوأ مستقلة يعني ولا في ماذا مالن ومصر مثلا حسان مرة واحد رأينا كهذا قلنا إن SDF شيء جنسي وحنا أركي رجوا وين المسؤولين وقال كعيو ku qabsaday xaflad badar inta karsaday kuwa garow ku qabsaday kamid ah odayga reeyooniso qarjab ahaayo Buntland marna wasiir amniga marna gudoomiyaha gobolka Nugaal ahaayo anagoo SDF aan qanday ka maqan waagi hore ninka madaxa cado qowshaarka ay wasiir dakhiliga hadda inoo ah la yiraahdo juxa ba qurankaas loo soo dhiibi jiro sheegi jiray hadda waxa moodaa wixii guniga caar la baxday marka waxaan rabaa dadka jiilka ah Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed SDF waxay ahayd inaan u sheego ama halkan ka sheego horta SDF beel ma ahayn beelna looma nismeyn kariyo SDF waxay ahayd koox afraad calooshi u shaqaystayaal ama dhadhama raaca oo ay sameeyeen ku banaasaweyntii iyo ruushkii 77 dalka maxaa siyaad barra ka saaray ay soo fuuleen gadaalna uu ka taagnaa ninkii la oran jiray Liibiya dadkii reer Liibiya naceeno Muammar al-Qadaafi oo agabka loo soo marin jiray waxayna soo magansadeen asxaan oo ahaayeen amxaar migista xayla maryan iyo dalka Soomaaliya inuu qabsado rabo marka wuxuu ahaa mashruuc lamida Fagner Group ruushku ku shaqeysto kale ama mashruucaas magaciisa waxa la oran jiray Soodaf ujeedkooduna wuxuu ahaa laba magaalo Soomaaliya inay gubaan Balanbal iyo Galdugo SDF marka khaa'imiintaas ay ahaayeen in dalkoodii iyo dadkoodii khiyaamay way bixeen Itoobiya tageen oo rayaal yasaad maqashaan Soomaaliya ku soo duuleen waxay ku soo duuleen oo target waxa magaalada Galdugo iyo magaalada Balanbal la yiraahdo waxa xasuus mudan hadii ay ahaayeen koox xukun madaxweynaha ku haysatay Soomaaliya xilliga maxaa siyaad bar Allah u naxariistay Galdugo iyo Balanbal markay qabsadeen magaalada Soomaaliyeed baa dadka ku nool dad shacab Soomaaliyeed bay ahay siraac riyaasa ama tartanka madaxtinimadana way ka madax banaanaayeen waxay dadka shacabka u laayeen waa su'aal haday xukun doon ahaayeen aysan dhiigdoon yaa maxaa kalkaal ay ahayn maxay labada meelood amxaarkii ay la socdeen ay uga taageen calanka Itoobiya Galdugo iyo Balanbal maxay jingadihii Balanbal iyo kuwii Galdugo intay bilila qaysteen maxay dugub iyo meesha la yiraahdo galaadi iyo booq iyo maxay ugu dhiseen kuwii laga bilila qaystay yantidii Balanbal laga bilila qaysay la yeelatii Galdugo laga bilila qaysay dadkii Soomaaliya reer Galdugoobna waa la laayay SDF ayadoo xabad ku ridaysan maxaa siyaad barro dagaalamaysa maxaa siyaad bar xukun kama dhicin horta ma ifaan kuwa ku faanaya maxaa siyaad barraan tuurnay ama la dirirnay waxay ahayd ay dhisigiskii markay soo xarootay oo amxaarkii migista xayla maryan ah uu fahmay nimankan la jooga Soomaaliya inaysan wax ugu oolin amxaarkan ay wax ugu oolin intuu yiri sarraaf ama kumi kama aqaan ama taana kama aqaan intuu yiri uu laayay ay soo xaradeen oo raadiyo Muqdisho madaxweynuhu cafis uga fidiyay oo yiri dadka Soomaaliya la soo dhiibay inna waxaan ku ahayn shacabkii Galdugo ku dhaqnay ee gardaameeyay hantidoodana burburiyeen dadkoodiina laayeen guryahoodina jabiyeen sidaas oo ay tahay xaldaladii madaxweynaha Soomaaliya soo jeediyay baan ku qanacnayo waanu soo dhaweynay 86 soo xaroodeen marka SDF ay hadda faanaysa 91kii markii Soomaaliya laga qaxay maxaa siyaad baray la qaxda oo raacda buurubay tageen maxaa siyaad baray la tageen markii dambe dadkii siliga Kenya orta ku tagay bay ahaayeen horta haday marka kursi rabaan ama kursi doonayaan waxa weeyaan ama kursi ay u dagaalamayeen shacabkoodana may qaxiyeen ayagoo dagaalamayaba SNMtana waxay ku fiicnaa ayagoo wali maxaa siyaad barra la diriraysa ayagoo wali maxaa siyaad barra la diriraysa buuba maxaa siyaad barra dhacsida iyadoo xabadu laakiin tani waa soo dhiibtay qaymada loo dhisi jiray 86 waa la soo dhaweyn jiray maxbar baa la oran jiray meelaha la dadajin jiray waa la caawin jiray islaamaha iyo dadka Soomaaliyeed baa koombooyinka caana buuro badar lagu guraysiin jiray oo dadkeenii khaldamay baa la oran jiray waxayna soo xaroodeen kuwa SDF isku sheegay ayagoo dilatu fil hayat dunya ku sugan oo madaxa hoos u foorariyay oo Soomaali hortood ku ceebaysay iyagoo is ogeen inay ceebaysan yihiin wixii madaxda u ahaana maxarkiiba xarika dhirjiyay waxna wuxuu laayo ka dhig marka kuwa hadda marka
juxa asaga garanaya odaga madaxa caado juxa asaga garanaya kuwa marka hadda doodaya oo xafladaha dhiganaya oo le ilmaha yar yar kula awrayaal iyo Puntland baa usoo adeer Puntland uma inaa soo dirin ee umana inaa soo dagaalamin 10 sano ka bacdi 86 baad soo xarooteen 14 sano ka bacdi ayaa Puntland la aasaasay maxaa siyaad baro 10 sano wadanka maamulayn ba Puntland lagu dhawaaqay isku tashi bulshada ku timid qof qori u qaatayna malaha laantaas aad u jeceshiin inaad jishaan baad jeceshiin taas ceel bay idinka dhacday waxa soo haray waxa tiraadaan waxa la gubay Puntland la gubay baad idinku hayb sheeganaya Puntland la gubay baraaga la sumay waxa idin sheegaya baraagihii la idinka sameeyay horta suntii waa horay gubay annaga miilooyinkii aad xabaasheen SSDF aad galdood ku xabaasheen inta qansaxla iyo gudub hees ka soo rogan ilaa balli soofe ilaa yaxrata la dhulka ka soo rogan miilooyinkii aad ku xabaashay SSDF adoo amxaar kalkaashanayo Soomaali amxaar ina u dulaysid raba kuwaad ku xabaasheen baa wali hadda nagu qarqarxo xoolalayda iyo dadka masaakiinta iyo dhuxulaysatada ay ku baaba'aan iyo dadkayga ciyaalada yararka iyo qofkii dhaqaaqaba la qarxada hay'adahan barinaayo hadda ka shaqeeya oo cunno ku qaata ya adduunka ku baarto bixiya waa hagardaamadii waxa soo haray SDF wax lagu faana ma ahan ceeb laga cararay ahay oo laga yaxyaxo waxay ahayd qoladii Soomaali gubaysay gunnimo biday haddana ku adkaysan weeyay markii dambe ninkii la dirirayay madaxa u soo horsato oo soo dhiibtay waxa soo haray inta inha iyo binha ka bilaabato oo iltihaad ku xigo oo maxkamad ku xigo oo shabaab ku xigo oo qurun iyo waqti dhalay Soomaali diido dhan ugu horay SDF baa dhashay waa maxsuulkii SDF ama productiga SDF taasi waa taa nimanka waaweyn ee ku faanaya adeer macaan hagardaamadii aad dadka u geysateen ba hadda arrada xal dalay baan hadda wixii wax lagu faara ka dhigata annaguna waa ka xisaabtamayno jiilkana waxaad ahaydeen oo run ah baan u sheegaya waxa soo haray wiilal yar yar oo la dhiigii aabahay la qarin mayo aw rayaal kan weey lahaa adeer waxaan leeyahay khaa'imiin bay ahaayeen aabaha hadduu ku jiray adeerka khaa'in dalkiisa khiyaamay buu ahaay ha u doodi ilaahay baan quraankiisa ku yiri walaa takun lil khaa'imiina khasiiman war kuwa khaa'imiinta ha u doodin qofkii u doodan la mid bay ahayd intaas